kawthar. hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in daadadka bakistan ay isu beddelayaan mid ka mid ah musiibooyinkii ugu xumaa ee abid soo mara dalkaas. 100,000 oo qof ayaa ku waayey guryahoodii iyo maciishadoodii. wasiirka cimilada bakistan ayaa b b c da u sheegtay in roobabkii dhowaan da'ay ay ahaayeen kuwo aan horay loo arag, islamarkaana hay-adda maaraynta musiibooyinka ee dalkaasi ay xakamayn weyday. sheera raxmaan ayaa sheegtay in qaybo ka mid ah gobollada shinda iyo baluujistaan ay u ekaadeen hal webi oo weyn. webiga kaabuul ayaa qarar ka jabsaday isagoo xaaqay guryo iyo hoteello. ku dhowaad 1,000 qof ayaa ku dhintay roobab mahigaan ah oo ka da'ay dalka tan iyo bishii juun. magaalada tripoli ee caasimadda libiya ayaa waxaa weli ka socda iska hor imaadyo u dhexeeya taageerayaasha 2 nin oo iska soo horjeeda oo labaduba sheeganaya inay yihiin ra'iisul wasaare. guryaha qaar ayaa la gubay halka baabuurtana si weyn loo waxyeeleeyey. kooxaha hubaysan ayaa mar kale is-abaabulaya, taas oo dhalisay walaac laga qabo in dagaal sokeeye uu mar kale dalkaasi ka qarxo. ra-iisul wasaaraha jabaan fumio kishida ayaa ku dhawaaqay $30 bilyan oo markaasi 3 sano ee soo socda sare loogu qaadayo horumarinta qaaradda afrika. ballanqaadkan ayaa imaanaya xili madaxda jabaan iyo kuwa afrika ay ku kulmayaan dalka tunisiya si ay uga wada hadlaan kobaca dhaqaale ee qaaradda, halkaas oo ku sii kordhayo saamaynta uu shiinuhu halkaas ku leeyahay. qaramada midoobey ayaa si kulul u cambaaraysay weerar dhanka cirka ah oo lagu qaaday xarun carruurta lagu xanaaneeyo oo ku taal caasimadda gobolka Tigray ee Maqale ee Itoobiya. dagaallo soo cusboonaaday toddobaadkan oo u dhexeeya fallaagada Tigrayga iyo ciidamada dowladda ayaa jebiyey heshiis nabadeed oo socday muddo 5 bilood ah. ugu dambayntiina golaha deegaanka ee Mariupol ayaa sheegay in saraakiisha Ruushka ee maamula magaaladaas ay gacanta ku hayaan xero ay ku xareysan yihiin carruur reer Ukraine ah oo laga dhaadhicinayo nacaybka Ukraine, islamarkaana la barayo sida wax loo toogto. mas-uuliyiintan ayaa soo bandhigay sawirro muujinaya carruur xiran dirays oo kala furfuraya qoryaha kalanshikoofka loo yaqaan. warkii caalamkana waa naga intaas. kawthar, aad baad u mahadsan tahay axmed mursal xuseen. halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da. dhegeystayaal u diyaargarooba markana qaybaha kale ee barnaamijka. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, aan ku bilaabnay ugu yaraan 50 qof oo dheeraad ah ayaa ku dhintay dalka Pakistan iyadoo roobab xoogan oo sababay daadadna ay ku dhufteen qaybo badan oo ka tirsan dalkaasi. dhibanayaasha ayaa badankood ka soo jeeda waqooyi galbeed ee gobolka Khaybar, halkaas oo mas-uuliyiintu ay soo saareen digniino hor leh. wararkii ugu dambeeyey ee daadadka Pakistanna waxaa inoo haysa Faadimo Macalin Abuukar. webiga kaabuul ayaa qararka jabsaday isagoo cagta mariya guryo iyo hoteelo. dadka ku nool degmooyinka qaar ayaana lagu wargeliyey inay meelo kale oo ammaan ah u guuraan. ku dhowaad 1,000 qof ayaa ku dhintay roobabka iyo daadadka tan iyo bishii juun. dowladda dalkaasi Bakistan ayaana halkaasi ku daadguraynaysa ciidamo caawiya saraakiisha gudaha ee ka shaqaynaya howlaha samata bixinta iyo gargaarka. agaasimaha dalkaas ee hay-adda gargaarka Islamic Relief Worldwide Asif Shirazi ayaa b b c da uga waramay baaxadda dhibaatada. intii aan ku guda jiray safarkaygii dhan waxaa da'ayay roob aan kala joogsi lahayn. roobkuna wuxuu ahaa mid joogto ah oo burburinaya dhismooyin badan oo ay ku jiraan kuwa dadweynaha, waxyaabaha nolosha asaasiga u ah buundooyin iyo waddooyin. marka waa burbur meel walba ah. haddii aan la barbar dhigo daadadkii 2010 xaaladdu way ka sii daran tahay. guud ahaan 33 milyan oo qof ayay daadadku saameeyeen. 4.2 milyan oo kale ayay toos u saameeyeen. qiyaastii 100 degmo oo gudaha Bakistan ah ayay daadadku si ba'an u saameeyeen. marka waa mid ka mid ah musiibooyinka waaweyn ee aan aragnay taariikhda dhow. wuxuu sheegay inaanan si weyn loo baahinin oo warbaahintu aysan shaacinin daadadka ilaa toddobaadkii lasoo dhaafay, islamarkaana ay jirto dhaqaale la'aan si loo caawiyo dadka ay saameeyeen daadadka. nasiib darro, wacyigelin yar baa jirtay 2 toddobaad ee ugu dambeeyey. toddobaadkii ugu dambeeyey waxaan arkaynay xoogaha wacyigelin ah oo ay warbaahintu ka tabinayeen musiibadan. dowladdu ayaa sidoo kale qaramada midoobay ka codsanaysaa
$160 milyan oo dollar, balse haatan khayraadku waa yar yihiin. xitaa qorsheena ka jawaab celinta wuxuu ahaa $15 milyan oo dollar, balse ilaa iyo haatan waxaan keliya helnay 8% lacagtaasi. hay-adda Islamic Relief ayaa caawinaysa ilaa 7,000 oo qoys, iyadoo siinaysa cunto, waxyaabahan cuntada ahayn, agabka fayadhowrka, hooy iyo biyo. baahiduna way sii kordhaysaa. Water and sanitation and the need is growing. Faadimo Macalin Abuukar warbixintaasi inala socodsiinaysa way mahadsan tahay. markana war kooban, wararka ka imanaya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in uu yaraan